wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa waxa ay habeennimadii xalay qabatay tartanka xidhiidhka legdanka qallaama rogadka ee loo yaqaano juudoo tartankaasi oo ay ka qayb qaadanayeen dhalinyaro kala duwan oo ku tartamayay qallaama rogadka iyo legdanka. munaasabadani ayaa waxaa ka hadlay مسؤولين كسعتي وزارة الدنيا iyo ciyaaraha Soomaaliland kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo qeytartankani waxaana hadaladoodii kamid ahaa aniga mar walba way farxad sida dadka qaar oran maayo maanta way farxad oran maayo laakiin aniga mar kasta farxad bay tahay mar kasta oo ciyaar sameeyno mar kasta oo qaybtii wax sameeyo farxad bay tahay runtiina barnaamijka aan maanta aan diyaarin halka juudoo ciyaaraha juudoo waxa jooga garsoorayaal caalami ah oo dawladda Itoobiya ka socda ayaa ciyaartan xaalinaya oo aad iyo aad u soo jiitay shacbi weynaha Soomaaliland. dhinaca kale barasab ku xigeenka gobolka Maroodijeex oo isaguna madasha ka hadlay ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku amaanay doorka firfircoon ay ka qaadanayso fardaha. runtii wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda fardaha oo maraha dhaqankeennii mar labaad iyaduna caalami oo lagu tartamo wasiir boos insha Allah waxaan ka rajaynaynaa tartankii geela waxaan ka soo qaadnay cawrana ka soo qaybay qabtay inuu sida xiriirka waddankeena iyo waddanka Itoobiya walaalaha nahay ay u soo xoojinto insha Allah annagu waan tagaynaa bari ama saacad kale waxaan tagi doonaa tiimka asxaabtu soo fadhiyay baa qaban doona tijiga سأقول صحيح تبي كبر يستجيبه كورة كورة والمستقبل إنه يوضنا يوجد الحي أبغى نحن سودا كلام نقول أحسن سبورت سودا كلام كل من دليلنا Soomaaliland قيم ciyaaraha iyadoo gobolada oo dhan waxa weeyaan inta badan la dhigay roogii iyo maxaa garoon caalami ah oo ciyaar karo iyadoo dhammaan gobolada dalkooda lagu qabtay ciyaarihii kala duwanaa iyadoo dhalinyaradu ay saddex gashay aad iyo aadna ugu muhiimiyeen iyadoo adduunka ay qayb ka tahay isboortiga iyo dhalinyaradu in la kobciyo iyada iyo aqoontaba siyaasadda xukuumadeena ay sidaa tahay ee wasiirku uu matalayo. ومصطفى أحمد سمكاب تلفزيون كعالمي ده دلسن TV مقالة هرقيسة.